kalfarigii koob iyo tobanaad ee baarlamaanka qaaradda Afrika ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Pretoria ee xarunta dalka South Africa. xubnaha baarlamaanka Soomaaliya uga qayb galaya baarlamaanka qaaradda Afrika xubnahana ka ah ayaa hordhigay baarlamaanka qaaradda Afrika anjadiyal ku aadan sidii wax looga qaban lahaa arrimaha burcadbadeedka ee dalka Soomaaliya iyo waliba in si weyn loo taageero dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya. ajandiyaasha ay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ka socda xubinna ka baarlamaanka qaaradda Afrika ay hordhigeen baarlamaankani ayaa lagu ballamay in la hordhigo kulanka madaxda qaaradda Afrika ee bisha June ka dhacaya magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ka socday oo ka koobnaa ilaa 4 xildhibaan oo midi ay haween ahayd ayaa ka qayb galay kulankii baarlamaanka qaaradda Afrika ee sida weyn loogu doortay gudoomiyaha cusub ee ninka ka soo jeeda wadankaasi Chad ee lagu magacaabo Masri Idrisi. xubnaha ka qayb galay baarlamaanka qaaradda Afrika ka socday baarlamaanka dalka Soomaaliya una ka mid ah Jini Boqor ayaa si weyn u muuqanayay inay ka go'an tahay in baarlamaanka qaaradda Afrika go'aano ka soo saaro isla markaana ay horgeeyaan madaxda qaaradda Afrika ka oo ku aadan in si weyn loo taageero dowladda ku meel gaarka ee hoggaankeedu hayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. qodobada ay hordhigeen ee loo gudbin doono madaxda qaaradda Afrika ayaa waxa kale oo kamid ahaa in si weyn loo taageero dadajinta ciidamada qaaradda Afrika oo haatan Soomaaliya ka joogaan ciidamo ka socda wadamada Uganda iyo waliba wadanka kale ee lagu magacaabo Burundi. dowladda Djibouti xubno ka socday oo ina qayb ka ahaa taageerida go'aanada baarlamaanka Soomaaliya xubnaha ka socday ay hordhigeen baarlamaanka qaaradda Afrika ee isna waxa uu ku booriyay baarlamaanka qaaradda Afrika in laga shaqeeyo sidii loo dhameystir lahaa ciidamada qaaradda Afrika ee hore loogu yaboohay in loo diro wadanka Soomaaliya ajandiyaashiisa si weyn go'aanka looguma aanan saarin maadaama doorasho ay dhacaysay. saddex mudane ayaa u tartamayay ka qayb qaadashada jagadaasi qaaradda Afrika baarlamaankeeda. haweeneydii u dhalatay dalka Tanzania ee muddo 4 sano xukumaysay ayaa ka degtay. Idris ninka lagu magacaabay u dhashay wadanka Chad ayaa ku guuleystay hoggaanka baarlamaanka qaaradda Afrika ninkan oo asal ahaan ka soo jeeda wadanka Soomaaliya. baarlamaanka qaaradda Afrika doorashadu jawi aad u wanaagsan ay ku dhacday. xubnihii baarlamaanka Soomaaliyana dib ay dalkii ugu laabteen. Ismaan Xasan Ali Universal TV Pretoria.